dusha saaratay yani nagaadu dhicin durba inay bulshadu u dareerto oo annadaada haysa laga doonayaa lagu duceeyo dadaal muujiyo shacabkaagan dayacan daacadoogu adeeg lagu duceeyo dadaal muujiyo shacabkaagan dayacan daacadoogu adeeg danta Soomaalidiyo daruufaha adag adiga daweeyo lagu dalbaday dawlad wada jirto isku duuban oo aanu doorano na difaacdaan rabnaa lagu duceeyo dadaal muujiyo shacabkaagan dayacan daacadoogu adeeg lagu duceeyo dadaal muujiyo shacabkaagan dayacan daacadoogu adeeg horta waxaan tolkayga aad ugu mahadinayaa muddo gaaban inaan inii yeertay oo si aan ka filaynin ay igu soo ajiibteen si weliban tolnimo iyo walaalnimo imaashadayna keliba i deeqde intaas keli aan ku qancayba horta waxa ii dhiman hadda ma aan ka saay ma leh nin tolkiisa u yeertay oo tolkiisa ku dii u maaday ciyaar ma aha kollaba kalsoonidayda iyo magacayga aan ku umaaday nin hadduu yahay maanta iskorisi ama tol dhibe sida igu soo ajiibteen ana magacayga agaa nii sheeg ina kale inaa garanayn ma leh waxaan ku wax bartay masalaani ilaa gaarisa gudaheeda ma dhaafin wixii jaamacada ka bilaawato hor loo dhaafo ma ogiye marka qofkaas waa qof dareenkii bulshada garanay midaasaan ka jawaabahay maxaa yeelay ninka dareenka bulshada ayaan garanayaa waxaa ii sii dheer aabahay markuu nin xasan baa noqday dhammaan ciddan midaa meel ii gelaynin ma leh hooyaday waa reer xasan inkastoo kaliya si igu soo galaysin aan ka say Abubakar Abdullah walaalahay meel iga soo galayn nin reer Maxamed meel baa ka soo galay nin maxaa u malayna samawadal oo reer kaliil meel ka soo galayn ma jiro kii oo yara guurku umaana marka waxa ahay nin haddana tolkii isku wadi karo oo tolkii u dhan 45 sano aan jiraa hadda 46 ku socdaa haddii liiga sheegto intiina fadhido hal samawada hadduu iga sheegto ama hiila oga tage ama hoon oga tage ama aflagaada aniga imaate intaana ku harayidna maba niisi dhibay nin 46 maraay oo laga sheegan waayna had culeyskiisa dareemi kartaa marka meeshan waxaan u codsaday waxa way wax ogaadeen u dhaxeeyo aan iska codsaday aan iska weydiistay samawadalna hawada iga gashay aan ugu yeertay maanta oo sanad u raasay waxa way markii ugu dambeysay doorashada aan galo oo la harbiyo waxa ugu dambeysay midaan MP-gaanya walaashay aan soo qaadaynay Safiya aani keenay ana madax ka ahay weligay ma arkin qolo muslimiin ee Soomaali ah dumar intii la tagto oo si ogaanta haddana sharaf noo galeen ana xasan aan sheeganay waa la yaab hadii Soomaalka sheeganay aadan u yaaba waxa aan weligay dhicinaas inoo sameeyeen waad ku mahadsantihiin wiil ma hal meeray mar baan noo sameeyeen waxaana keen hiilada markasta nii hayni cidda waxa iska fadhiday 40 sano iska fadhiday ay ogoleed inay dad wado war maanta daan ku dhex iyahan been waa soo ceeb maaha Soomaal kii wax iyahan been waa in lii qabto ay ku jirta ayna hambada wax jiro way waa la isku hambeeyo diinta dhigi dhaqanka dhiga marka maanta xagaan ku socdaa aan wax ceeb niga iimaanay ma laho waxaan u malay intaan sheegtay ilaa maanta hadda ku jirtiin idaacadaha ama meelaha magacayga iyo ogaadeenka nin kasta wuxuu ku faanahay ninkaas hadii noola keeno nin dhib keenay ma aha waa nin lagu kalsoon yahay marka faala badan iska sii bixinay intaas gaaban ama rabina inii sheego waxaana haddana ilaahay ka baryayaa haddii aan jagadan doonay oo tolkayga dolan uu sameyn doono ama naftayda dan ugu jirin aakhirada ay seejini inuu ilaahay iga reebo hadduu qeyr igu jiro iyo waxaan higsanahay tolkayga inaan u qabto iyo horta wax baan wada qaban nin ku dhoobeen wax qaban karto ma leh ilaa nin meel ku taagan oo ku difaaco countiga ku difaaco ka difaaco baa la rabaa countiga dagaal lagu difaaci karo walaalnimo hoos adduunka lagu wadi karaa ma jirto meeshii bariga xoog soo jeedin sidii kaanu qababac ma jirto
adduunka maanta maxaa wadi karaa hadda adaa fiiriso impiyaal qaar waxaad arkaysaa intaasoo wax bay qabtaan kuwa qaarna waa gacan ankaga waa laga gaajaysan yahay waxay ku xiran tahay waa sidii oo la dhaqani ummaddan kale governor waa ilaa la saaxiibto ninku rabo ha noqdo ilaahuma aan senator soo galo oo governor aan wadin uu soo galo waa lala shaqayna MP la xadiita waa la shaqayni MC waa la shaqayni tolkaad in isku wado baa la rabaa tolka haddaa isku wada wax ku qabsay ma wajiro marka midaas waxa ma anoo yar baa liiga arke cidda markay madax ii dhiibanayn ugaas ii dhiibanayn dad baa jooge adeerkay baa jooge dad iga weyn baa jooge abooyahay baa joogeen iyuka intay fiiriyeen dhahay ninkan mas'uul ha loo dhiibo mas'uulnimadana leen bay leedahay calaamay leedahay tilmaam bay leedahay nin tuuge ummadda laagana wax ma loo dhiiban karo nin dad dhibaay wax ma loo dhiiban karo tolkayga hadduu haddana waxban ii diidona mana ku xumaanay laakiin waxaan ogol yahay markii ugu horreey oon wax soo weydiisa tolkayga hadda way intaasoo waxaan soo maray waa inii sheege cidda waxay la qabsan laheedna waa ciidan 40 sano aan soo waday ma malaynaa inay maanta hanba ii diidayn iyugna waad mahadsantihiin allah nii barakeeyo allah samool ha barakeeyo allah mid ha naga dhigo allah ammaan hana siiyo ammaan ilaahay roob hana siiyo ogaadin allah ha ka dhigo ilaahayo waxaan kaa codsanaynaa waxaan doonaynaa oo qeyr ah ilaahay na siiyo meeshaan ku noolay ani xasan aadan cabdalla dadku madaxa disan ay ahaayeen haddana meeshaan waxay ka sheegeen 20 iyo dhowr sano inaanay kursi arkin xaqiiqa waa inaynan kursi arkin hadday ogaadeen marka hore may ogeyn mar haddaabaad ogaateen inaad kursigii aad ku dhammaanayseen idin lahayn waxa idinku ceebinayo samoodal idin dhahay maxaa wax u sheegateen ma jiro kursigii aad ku daalayseen ku dhimanayseen idin lahayn haddaad ogaateen wax samoodal oo idinku ceebinayo ma jiro inaad wax sheegataanna xaq baad u leedihiin samoodal aad ka dhalateen hasmaadanow waa idin maqalnay waanaad mahadsantihiin idinma dayrinaay ani yuusuf haddaan ahay mana idin dayrinay waxay sheegateenna raalli baan ku ahay raalli yaan ku ahay sidii uu dhahan ba anigana la qabaa waan tashanayn nin ku tashanay waan ku tashanay tol ku dhahana maxaa la dhahay nin islaan intuu ku dhaw waan ku tashanay nolol filo waxaa la yidhaha cadow khaliif aadan waxaan nahay beeshii reecigaal waxaan u malaynaa walaalkayna hadduu gogladay kama dheerisadii nimankii ugu horreeyey baha cabdikariin ay dhaheen waa lagu tashanaa markan waxaad ogaataa sad inaad filito yaad qalbiga u sheegaysaa wasalaam beesha samoodala halkan iskugu imaatay wada tashiga iskugu imaatay waan salaamaynaa marka hore salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codkayga intuu gaari waayana ha iska raalli ahaato waxaa weeyo beesha noo yeedhatay walaaladana xasan aadan arrin siyaasaday noogu yeedhatay wax cusubna ma aha cadow siduu warbixinta ku sheegay waa runtii waa sidaan aqoonta u qabno waan u qabna aqoon dheer haddaayba hadalkiisa waxaa ka mid ahaa ninka ugu fog baa guur nagu soo geli buuri meel laygaga maqan yahay ma jirto runtii waa saa darteed waxaa la yidhi wadaantii ceelkeeda ciddeeda waraabisaa cid walaala ku darta samawadal maanta wuxuu u baahan yahay wada tashi iyo inuu wax meel isla dhigto oo uu meel ku jahaysto hadal macaan baad ku hadashay hadday shar ii tahay tolkayba allah iga reebo oo meesha allah ilaahay ma siiyaa tiri hadday khayr ii tahayna tolku ha i qaado oo allah i waafajiyo siyaasadda sanataha waan ku jirnaa hadda ninka ku jira iyo adigana walaalaad tihiin ehel baan wadannahay inay waxay ila tahay siday duqaydu sheegeen annagana balashaan tarisweyne waa iskula noqonaynaa waa tashanaynaa siyaasadda waa la falanqayn doonaa adiga meh ku kala imaan doona ku kala imaan doona samoodal weynena uu ka wada fadhiisan doonaa sanatihiina de waa mid kulligiin inaad sana wata helaysaan ma noqon doonto mid unbaa un la soo reebi doonaa halkan baad walaada adig ku dhiibatay oo si fiican aad u hadashay waadna ku mahadsan tahay waxaan salaamahayaa beesha xasan aadan ee gogasha dhigatay ee iskugu kaanyeedhay ee raadinaysa jegada weyn ee ummadda gaaris oo dhan u dhexaysa yaan salaamahayaa assalaamu calaykum salaantaa kadib waxaan u malaynhayaa samawadalku inuu tashado waa laga maarmaan wixiina waa hal kursi kursigaana wuxuu u dhexeeyaa gaaris oo dhan waxaa laala wixii gaaris joogo dhan buu u dhexeeyaa
rag kale iska soo sheegan kara wax kala dhici kara samarku in badan baa soo sheegan karta marka in laga tashado oo hal meel loo geeyo oo hal meel lagu dhago yaa fiican marka haddaan ahay beesha Salmaan Cabdulla anoo ku hadlaya waan maqalay walaalkay Cadow Khaliil arrintu soo gudbiyay ee noo keenay waan maqalay tolkay baan ola noqon hayaa ma bujin haye waa inaad ogaataan waana ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala waba sheegtay anna hadda ka hor baan u duceeyay waxaan ku iri hadduu khayr ku yahay ilaahay ku waafajiyo hadduu shar ku yahayna ilaahay ka xijaabo wixii shara ma fiicno wixii shara oo dib ku keenaya ma fiicno annagu hal mowqif baa ma halka jeemaanka uu nagula hadlay baan hadda annaga naga tahay insha Allah wuxuu jeemaanka noo soo gooyay baan noo goon walaalayaalow arrintan waan maqalnaa Xasan Aadan ay saaka sheegteen waan maqlahaynaa ina Khaliil Jubad waa nin dhalinyaro ee aqoon u leeyahay laakiin intaan aniga ka bartay nin xun ila ma aha qoysku ka dhashana waan aqaana ina Khaliil waan ku maqalnay aad baan halkaas u maqlahaynaa qabiilkii gadaal buu u badan yahay aniga duqrey maxamed baan ahay rag badanna meesha uu ila joogaa talaad mid aan kaliya goon kara ma aha talaad samal waxay u baahan tahay gurguris bay u baahan tahay halkaada waan dhageysanay waxaan ila tahay gabayo gumba gadaal bay u weyn yihiin tolkaada kuma necbano laakiin samada talab u baahan yahay talaad isku noqono wabillahi tawfiiq tolkeena Xasan Aadan xaq bay u leeyihiin inay soo sheegtaan waxa damaantle kala boobayo ma jirto gun iyo geedkaba gadaal bay u weyn yihiin markii lagu leeyahay sidii ahaan jirtay intii la fariisto qoysba qoystii loo fariisto hal mar la fariisto yaa wixii la reebi karana la reebi oo la dhihi meeshan waan ka joojina adig war hebelna waan soo qaadanay iyadoo isdiida iyo muxuu ahay maran aan jirin aniga sidee u bayga tahay waan maqalnay xumaan ma ahan wuu hawoon karaa kan kalena horaan buu ku jir wuu hawoon karaa waxaan leeyahay tashi baan la cishanayaa qoyskayga wixii maanta meesha noogala sheegana waa horgeynaya walaalkeena saasuu rabaa waaw baan leeyahay walaalkeena aad buu u mahadsan yahay sida sharafta leh oo uu inoogu yeertay intii walaale oo muxuu ahay soo ajiibtana way mahadsan yihiin insha Allah taala ninka uu hawoon karaa hawana way geli kartaa mana xumo wax xun ma aha insha Allah taala walaalkan waxaan leenahay sidoo odaygii iga horeeyay adeerkii ahay uu sheegay marka waxaan leenahay guniga geedba gadaal bay u weyn yihiin walaalo waan ku maqalnay soo dhawaaw walaal jiro waxaan ku hadlayaa afka beesha Baha Cabdalla waxaa jirta walaalka annaga beesha Xasan Aadan shalay annagoo inay noo yeerteen qoyska Samoodal nin inay u yeerteen ayna noo sheegeen fadhigan inuu soo socdo marka waxaan ku gaabsanay ninka saarayigiisii mar hadduu fadhiga u dambeeyo inuu nin kasta wuxuu ka dhiilahay uu ka dhaho aniga waxaan leeyahay khaasatan walaalahay Xasan Aadan dhammaan anigoo Samoodal u mahad celinayo mahad gooni ayaad leedihiin waayo 20 sano ee aan hogaaminay beesha Samoodal aan u hayay hogaanka waa cid kali ah hormuud iyo gaashaan iyo bidixii midigba iga taagneed salaantaas iyo mahadaas waan idin haynaa horta marka walaal ani Samoodal baan nahay wuxuu Samoodal qabo baan qabaa gun iyo geed gadaal bay u weyn odayaashii waa joogaan inta Samoodal dhahan baan dhahay waan isku noqonayaa waanan taagnahay haddii wuxuu Samoodal go'aankana Samoodal baa iska leh adigana waad soo hawootay 20 sanana waad u watay maanta dad soo hawootay xaq baad u leedahay inaad soo hawooto walaali Xasan Aadan noo yeereen muslimiintana waxa way qofka muslimka markii loo yeero inuu soo ajiibo waa soo ajiibna waa imaanay yarka walaalkeen gogoshan u dhigtay waan imaanay waan u soo ajiibnay waana xaq u leeyahay inuu gogol dhigto waa nin Samoodal leh oo dhalinyaro oo wax bartay taa waxba kama qamno abtirda Allahna waafajiyo wixii khayr ilaahu nasi wixii abshir ilaahu noo soo gali ilaahay muwaafaqo nasi inta dhimato ilaahu u naxariiso inta jira ilaahu noo caafi
ilaahu roobna sii ilaahu nabadna sii ilaahayow muslimka gaarta joogo xanuun baaja muslim ilaahuna caafi muslimka meeluu joogo ilaahu caafi faatax walaalayaalow anigu magacayga waa taqaaniin maxamuud addoon cumar way waana odaygii baha jeemankii baha hadal gaaban hadalkeebu iska yarya muxuu ku yaryahay walaalahay xasan aadan waad gogolateen waad noo yeerteen waa nii imaanne ceeb ma aa sheegin xumaanna ma aadan sheegin dambacaad qabto umaad sheegate samoodalaanaad u sheegate samoodalkiina wuuba dhammeeyey hadalka muxuu ku dhammeeyey walaalow hadalkaa waan maqlnee waa soo tashanay anna kaasun baan qabnaa ku gaare ma qabno anoo ku jiro gember ku fadho ina kaliil jubad wuu joogsan kar rees cusmaanoo abookey walaalkey wuu joogsan kar wuu dhigan karaa gogol tolkii weynaay ay u taallaa marka waryaa adi har adi soco labadaba waa inoo siman yihiin labadaba waa inoo siman yihiin haddii oo maxaa la dhihi jire kistoo waxoogaa jalafaq liska dhaafo labadan wiil labadaba gacantaa inay ku jiraan ma hoose ma wadan ina kaliil jubad waan ku maqalne tol gadaal buu u weenya waa la tashana ama asaa la reeba had ku jiro ama adaa lagu reeba oo had soo socoto labadiinna waa idoo simatiin horta niyadda khayr u sheeg tolkaaga kuma nacbano waa la ogya taariikhdaada intan wixii ay intay isku raacdo masalaan lala fariisaya gaaris lala fariisaya ay soo goosto ama labadiin ama midna ku socona midna ku hara beesha xasan aadan oo noo yeeratay oo gogosh dhigatay intan oo samawadalna ay soo ajiibtay horta aad mahadsantihiin samawadalow waxaan malayni keedkan hadin baa ku jira keedka naga maqan oo had mataqaanaa oo dhahayno qabiil hebley ku maqan yahay gacan samawadal kuma jiro oo dhahayno gacan samawadal ku jira ninkan soo hamoodaya waa nin walaalkeen oo samawadal ah ku kale samawadal aa soo socdaa ku kale aa soo socdaa adamba intaas oo rage keetiyaas ma wada heli karnaa yaa la rabaa inuu kala reebo intii la rabo inay kala reebto cowlahan kale mareer rabay caawada kale inta la rabo inay kala reebto waa intan uguuda marka arrinta way fiican tahay ninkan wuxuu yiri tolkay hadduu i qaato diyaar baan wahay hadduu u reebano diyaar baan waa arrin hada fiican weeye marka hadal inaan murjino ma aho gun iyo geed gadaal ay weynhiin waan tashanaynaa wixii tolka ka soo baxo inti taagan wixii tolka ka soo baxo yaa riili ku ahaanaya xasan aadan gogol bay dhigteen waxay noo keeneen ugaaska beesha xasan aadan ahna wasiirka dowladdan countiga labadaa darajood buu isku haystaa ninkaa annaga haddaan nahay beesha abukor aadan caddow kaliil jubad waan qaadne haddaan nahay beesha abukor aadan culimadeeda akhyaarteeda cuqaasheeda odayaasheeda hooyooyinka gabdhaha dhammaanteenna caddow kaliil jubad oo walaalaheenna beesha xasan aadan ay noola imaadeen waan qaadnay wixii samawadal ay berrito sagaalka dab iskugu imaadaanna waan kugu dhex jirnaa laakiin go'aanka annaga hoostaa laga xariiqay beesha xasan aadanoy ka warqaba ani ofka ogaaska abukor baan qaatay waan qaaday habeena martaba iimaba imaanaysa ani waan ku qaaday martaba iima imaanaysa saasaa ku qaaday waxaan malaynaa abtigey cadow wuxuu sheegtay inuu sanata u taagan yahay aniga wax kale ma dhexgelayay embiyaad ahaadeen iyo maad ahaan iyo arrimahaas kale ma dhexgelay waxaan malayn kureestan maanta loo wada taagan yahay governor MCA muxuu MB kuddiisoo laguma wada fadho kursi bannaan maa jir soo looma wada taagno horta kursigaas buu la mid yahay ninkii ugu horreeyay oo Soomaalidal oo gogol noo dhigto annaga reer Garissa Township ana masheekar ijaara oo na dhow sanataan rabna waa asag Soomaalidal waa mahadsantihiin sidaan liigu yeeranay oo noo soo ajiibteen oo intaasoo saacadood loogu fadhideen waad mahadsantihiin Soomaali waxay tirahdeen nin gaale u tashado dil filo qofkii muslim hadduu ku tashadone nolol filo ani Soomaalidal ahay
samawdal wixii i keeno i keenaa wixii samawdal yahay ayaan ahay marka samawdalow cadaalad samee laakiin cadaaladda yaan laga tegin cadaaladda ha lagu dadaalo maadaama ani u soo horreeyey maanta gogoshan maanta 5 sano ani u soo horreeyey taxgelin weyn baan mudanahay waxaan maanta wax ka rajaynayna walaalahayn baha hadday gara waayeen oo rabo inuu Soomaal ka qabto hamba qofka hadduu hambeen wax weeyana walaalkiisa qabana walaalka igu gidaran yahay qabaal dhahe markii la gidaran yahay qabo ma wa filay maanta baha isku noqdo maanta inuu kursi ila qabsanayo ceeb ay ku tahay ceeb weyn wey maxaa inta hila oon galnay sheegeen oon uga sokeyn samawdal marka waxaan filahayaa baha haddaad tahay fariintaasaan kuu dira hambee sidaasuu kula aamina hataa samawdalna kale inaa hamba qabto haddii hamba lagaa waayo sidaa rabtaa inaad ku kabsato kan kale anaaba hamba kaa waaye midaas waa fariin walaalhay u diraay kalsoonida sheegteen aan ugu dirayaa waxaa mudnaan gaara siinhayaa walaalhay Abubakar Aadan oo kursigan wax ku codsan inuu qaadeen waan ka filayni way mahadsan yihiin todobadii kale waxaan idaan ku soo tashanayaa haddii ininka ma kuma mahdeenba nin mu'min hadduu ku dhawan ku soo tashana nolol filalo marka noloshaas ama filahayaa waa mahadsan tihiin waa iniga war sugaynaa aad ugu mahadsan